wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa subaxnimadii maanta soo gaaray magaalada Nairobi. wafdiga madaxweynaha ayaa ka soo kici timay wadanka Djibouti oo ay shalay gaareen waxa ayna saacado kooban ku sugnaayeen magaalada Nairobi iyagoo uga sii gudbay wadanka Ingiriiska. ujeedada socdaalka madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ka qaybgalka shirka dhawaan ka furmi doona magaalada London kaas oo looga hadli doono arrimaha Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeen Xuseen Carab Ciise oo kamid ah wafdiga madaxweynaha la socday oo kula hadlay qaar kamid ah saxaafadda Soomaalida gudaha garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkooda waxa uu ku saabsan yahay isagoo dhanka kala dafiray in xilligan oo kale ay suurtagal tahay in maxkamad la geliyo wadanka Soomaaliya. safarkan dadweynaha adduunyada baa sugaysay sababtihiinba maanta waxaad moodaa adduunyada oo dhan inay soo jeedo Soomaaliya xal kama dambaysa loo helo runtii waxaan rabaa Soomaaliya inay ka midaysan tahay in mustaqbalkii dalka la soo celiyo oo dowlad loo dhiso marka runtii waxaan tagaynaa nato United runtii fikradayadana si dalka loo dejin lahaa mustaqbalka soo hordhigana adduunyada waxaan ugu muhiimsan waxa weeye taas iyo talabaad ah in international community role ku sheego in la qabtana runtii sidii barnaamijka Soomaaliya la soo celin iyo ajandihi inaan soo garayno lagu caawiyo taa wallahi waan maqlay sheekooyinka wala isla dhaxyaacaya laakiin saan qabo dawladda waxa weeye runtii waqti waa la soo dhaxay waqtigii dawladda maxkamada la gelin jiray anigu waxaan aaminsanahay ma aha dawladdu waxay maskaxda galna ilama hay makaaniga maxkamada la geliyo dal xor ah madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa warbixin kooban ka siiyay saxaafadda Soomaalida safarkiisa ka hor inta uusan u duulin magaalada London waxa uuna sheegay inay ka qayb gali doonaan shirka London isla markaana aanay u soo qaadi doonin Soomaalida wax aanan u qalmin. Maasantiin kalba waa ka warhaysan safarkeena London aan ku sii jeednaa insha Allah ummadda Soomaalida meel joogtaba waxaan rajaynaynaa wax ka farxiya inay ka soo baxaan meeshaas 20 sano kadib in Ingiriisku isxilqaamo oo shir qabto anaga waxaan u aragnaa ififaalo horumar inay tahay marka wixii aan Soomaali u qalminna lama soo qaadi doono insha Allah wixii dan waa insha Allah wax diyaari doona marka maasantii wafdiga madaxweyne Shariif ayaa waxa kamid ah qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda ku-meel gaarka ee Soomaaliya oo kamid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo kan gaashaandhigga. wafdiga hogaaminaya madaxweyne Shariif ee u safraya magaalada London si ay u qayb galaan shirka looga hadlay arrimaha Soomaaliya ka dhici doona magaalada London maalinta Khamiista ayaa waxa uu ku biirayaa laba wafdi oo ay kala hogaaminayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo horey u gaaray halkaas. Ibraahim Geedo Cawaale S24 TV